بين كل شيء ما محمد وحنا رومانتيكوها مسجد كيسكورا إجرنا صلاة وحول وان بقانا يا بستين قانا يا مسكين تذكر الجنة عيد واسل عيد الجنة صوم واسل صوم الجنة أفتوك أنا بشا صورة كأنت لو سمينا محمد ما فهمتي مركا أنا جوا حقول لها هرتا أجهني يعني الصومالي هرتا إلى هاي كوس خبر دقروح بدن أو دجاعي أبو جوستي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندي السلام دمان برشاد الصومالي ملك استوجبتان ولا شيء أمن لك أوفيشيال ولا ليالو قبلنا محلي هذا منيرة محمد لبوي كهر بقى هاي مركي كعبانيسي وعيبين لارك سمينيسي ووحي لارك سمينيسي ومسكين حتى مدحيس يو محوها بديارتي سيدي الباب الحرية الله فري أيو كلاوي استعماليسي قبلها صوماليادو أتكيس وإنا ديالتان وإنا أما واحد اللي يرى أما أفاف هر الله هو ما أتكيس الدنب الله هو الدنيا ذا اللي بقى فوز قبل خلاف وصول حجلايا دبعته وإيمان كرته وحوي إيمان كران إلى دبعتنا جهية dadku iskhilaafi karaan laakiin haddaad mar walba la soo orodid miiriya inta soo gasho adiga ay istoogatid hadda muniira iyada istooganaysa maxamed oo ilaahay ogiyaa waxa ay ka sheegtay xitaa ilmi yar askar ugu yeertay oo gaala soo dhaxgelisay bay hadda waxay leedahay isaga ii wanaagsana maxaa u fakari weyday markaagii hore muniira maxaa uga fakari weyday waxaan aad ku dhaqaaqaysid gabdho badan oo meeshan ku jira marka qaar waan la yaabay aqligooda waxaan dhahay maxaa ka khaldan runtii ma maskax badna dadka miiriya intay soo galaan sidan oo kale u dhaqmo runaantii horaan u sheegay in gabadhan muniira ay aqligooda aad u gaaban yahay ma qof aqligooda buuxa ma aha sida aaminsan waxaan saa u leeyahay cadeymo badan iyo hadallo badan oo ay hadlaysa iyo waxyaabo badan baan ku arkay ma aha in uu gafayo laakiin dhaqankeedan ka arkay dhaqankeeda meel fog ma jiro oo dadka aad ka maaragtay loo qiyaamayn karo waa maalin waxaan arkay gabadha la dhaho أميرة أو نادينا أو معركتي إن دينا اسكو هجاتي وكلا وحساس وكلا ولا هذا يسوع معركتي أنسيف عن ولا هالدين مركا قف ضد كلا كبقية قف إن رأيي جيد عن كوكل صونين قف أركتي جيد عن كلا جوسن كرين ودبعتها إلى هذا هاي إن معركتي دينا عول بالله وذنكره لكن وح علوش يسمرك قفك كتير أونا سمين كرين علوش إذا وح كتير إن نيك دي تعيش هاي laakiin ay qancinayso dumarkan kale iyo naagahan mustaqbalka aan lahayn oo wada ognahay sida ay u dhaqmaan sida tii hana iyo tii amiire iyo kulligoodba ma aragtay in dad nolosha ka dhacay baa gabadhan u taliyay laakiin maskaxdeeda iyo aqligeeda may ka xisaabtamo hadda maskaxdeeda iyo aqligeeda ka xisaabtamayso sida hadda ay u hadlayso ma hadasheen ama dhinac bay isugu aadismi lahayd oo macna ninkeeda haysan lahayd ama way ka tagi lahayd oo maaragtay go'aan bayaan marka qofka go'aanka labca markiisa hore lahaa haddana la sii qiyaamayn karo la sii dirdiri karo waa qoftan iyo waxa la midka marka talaayidii haya gabdhaha Soomaaliyeed adduunyadu sideeda way iska hawlo badan tahay labada qofna way iskhilaafi karaan way isku dhici karaan farxad iyo naxdin way imaan kartaa murugo iyo maaragtay raaxo way imaan kartaa wax kasta way imaan karaan wax walba miiriyaha kula soo ordaysiin mustaqbalkiina noloshiin dhan aan ka sheekeynaysan iska diay walaalayaal waxa qof soo wada marteen marbaad isjeclaydeen qofka marba wanaag idin ka dhaxeeya hadii khilaaf meesha yimaado macnaheeda ma inaad ninkaaga iyo noloshiisa iyo ilmahaaga iyo waxa walba halkan soo dhigtid gabdho badan ma arkay gabadhan haddeer muniiradan waxa arkay gabadha kale la dhaho magaceed maxaa la dhahaa maandeeq ma ahayd aan ka hadlayay maalin dhawaan ka hadlayay oo cabdiwahaab nin la yiraahdo mar walba ka sheegato ninkeeda ahaa waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo kordhay gabdhaha Soomaaliyeed ku soo dhacaya marka adaa miiriyo ku soo ordaan miiriyuhu ma aha meel aad faa'iido kaga helaysaan noloshiina inaad kaga sheekaysaan marka aad iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed siiba dumarkan hadda qaarkood raba inay ku fakaraya inay intay soo galaan isla waa ku nafisaysaan meeshan kuma nafisaysaan miiriyaha markaad mustaqbalkiina iyo macnaha noloshiina markaa uga sheekeynaysaan macnaha iyada ay ku nafisaysa dad kale aad u sheekeynaysaan aan asxaan idin wadin aan naxariis idin wadin oo guri inay idin dhisaan iska dhaafay idin sii duminay idin sii baabi'inay idin sii kala fogeynay wad arkayseen muniiriya maxamed sidii loo sii kala fogeynay oo lagu taageeri lahaa waxaan cadaankii la keenaba lahaa reer hebel waayo iyaga soo caawin doona Soomaali laga dhigay nimanka askarta ahaa taas waxa waaye in lagu faa'iideysana marka gabdhow waa la idinku faa'iideysanaya
والدكو عياريا إلهي طريق بنوسمي جد بنوسمي هدي لبض قف إسقباء إسفهم ويان waxa ilaahay noo sameeyay in faamilada lala hadlo qoyska lala hadlo hooyo aabba iyo waalid iyo walaal iyo waxa leedahay uu sheego hadii aad ka maarmi weydo wayaan hadii aad ku maarmi karto marka horena adiga isku day inaad arintaada xalisato hadii ku xalismi weydo ehelkaaga iyo qaraabadaada u sheego hadii ku xalismi weydana muslimiinta ah masaajidka oo kale baa la tagaa yani ilaahay jid buu noo sameeyay jid walbaba yani guri si loo dhistay ilaahay uu noo sheegay sida loo deganaado loogu dhexnoolaadana alla waa noo sheegay Soomaa tanna waa soo kale sidaas oo kale guurka ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida loo guursado ilaahay wuu noo sheegay sida hadii khilaaf yimaado jidkaas loo kala maro oo la isku furana ilaahay wuu noo sheegay wadada iyo jidka loo marayana ilaahay wuu noo sheegay marka aad baad ma aragtay noloshiina ugu ciyaaraysan marka inta soo galisaan oo tiraada ninkayga waa saanaha ninkayga waa saan igu sameeyay ninkayga baa kan igu sameeyay adduunka qof aan soo marin ma jiro qoys walba oo arkaysaan wax way soo maraan labada qof wax way soo dhex maraan laba qof oo isla nool oo nolol wada qaadanaya tiin marka mar walbaba boqolkiiba laguma joogayo khilaaf uu imaan karaa laakiin khilaafka aqli baa loo baahan yahay aad ku xalisan karto inaad sameysatid hadaa xalin karina ina qofkii banaanka ka marto isku dayda inaad noloshaada qaadato hadaad hooyo tahay ilmahaaga iska korsato noloshaada qaadato markay aragto qofkii inay idin isfahmaynin hadii aadan qaadan karina ma umalaynayo gabdha iyo naaga la tashatay inay wax ku qaban doonaan ama maaragtay waliba miiriyaha yani hal saaxiib hal gabar oo la saaxiiba ama laba gabdhood oo saaxiiba nafta u baahan qof inay la taliso hal saaxiiba kuu qaaliya laba saaxiiba kuu qaaliya samayso fikradda laydinka dhaadhiciyo laleeyahay gabar lama saaxiibo waa khalad waayo gabdho badan oo tala fiican ba jiro walaaladiina maaha kuwa miiriyaha ku jiro oo kale macnaa miiriyahan aad soo gelinayso informationkaaga dhan aad halkan dad ka siinayso umalayn ma inay faa'iido kuugu fadhido marka hala iska ilaaliyo hadda gabadhii laga soo shalay tala soo gelinayay macnaha ninkeeda la lahaa waa umul askari ugu yeeray dhaqankeeda laga fahmayaa run ahaantii markaad saa usii fiiriso qofka hadalkeeda waxaad ka fahmaysaa in maaragtay khilaafka badanaa uu dhankeeda u badan yahay waayo qofka hadii laba qof oo isqaba ay kacajalada keena ama ka wax duuba ayaa fidnada wada Soomaaliya waa inaad taa barataan qofka wax soo duuba ee keena inuu qofkan ilaa labadan qof guriga ku wada nool yahay khilaaf uu imaan kara marka qofka khilaafka banaanka u soo bixinayo ee soo duubayo qofkaas fidna wada ah marka wiilkaas wiil degan buu ilaa ahaa gabadha umusha ay ka cabanaysay iyada qof aad maaragtay hadaladeeda markaan dhageysanaynay u ekayd qofka qalaasaha wada inay tahay marka mar walbaba eeda wiilasha la saarayo ama ragga Soomaaliyeed ee eeda la saaray gabdhaha la iska daayo tan oo kala ka dhalan karta bal hadeer gabadhan waa ogeydeen Abu Bidaar xitaa way soo sawirtay anu ma aaminsani Maxamed inuu ahaa burka inuu xirnaa ma aaminsani dadka aaminsan mihi oo umaleyn maay meeshaas inay burka ahayd laakiin xitaa haday tahay laba qof oo isqaba oo wax walba inay isku qariyaan ah bay ahayd aqli ma galayso sanad baan la joogaa mise 2 sano la joogaa bidaartiisa ma arkin aqli ma galayso waxaas wax aqli galama wax dad loogu sheekeeyo maaha nin dhanbay isagoo iska jiifay iska soo duubtay aniga kolle waxaan aaminsanaa in arintan fiyu loogu talagalay oo labadooda isla ogaayeen baa ani aaminsanaa ilaa hadeer laano xitaa markay soo duubayso halkaas wajiga waxa kaga dhagan bandage ama waxa nabarka markuu qofka ku yaalo wajiga laga dhajiyo oo weyn baa ku dhagan waxa soo dhan wax la isku dhadhajiyay bay u egtahay bidaartan wax la isku dhadhajiyay bay u egtahay waxaan kolle waa laba qof oo midha waxaan ku heshiiyaan siiri marka badana view-ga waa lagu heshiiyaa waana la soo sameystaa ku talagal baa loo sameeyaa ha iska aaminina waxaad aragtaan view raadiska ceebo badan baa ka dhaca dad badan baa waxaan oo kale maaragtay sameeya gabdho badan baa waxyaabo khalad ku hadla hadda maanta waxaan arkay mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay ku hadlayso aadan aamini karin oo isleedahay qofkan muslim ba ma gaal ba yani muslim iyo gaal waxay tahay ma kala kasaysid oo ma kala garanaysid ma fahanteen marka gabdhuhu waxa xishoodeen hooyooyinka xishoodeen ha iska hadii khilaaf meesha yimaado ha isku dayda inay wax xalisato laakiin marka horena ooy marka dambana ooy labada jeer ba iyada ooyeysa waa dhibaato waxa soo kale aqal gal ma labada jeer ba iyada ooyeysa bal gabadha ay la dhageysto waa gabadhii sidii loo orgad Maxamed Buskud u ceebaysanaysa wixii doona way dhacayaan ma fahamtay xitaa kan ajahanibka waxa weyslo dadku islaynayaan kan ma hasaan calasho hada dagaal ma may wala islaynaya wuu jira dagaalka laakiin aniga haanteeda waxa oranaha
ninkaas Soomaaliga wax dhaama ma jirto oo markii hore maad ogeyn taas Muniiray oo gacanta ku qabsanaya oo ciida kula ciidaya adigoo isku dartihiin miskiinka kula tagaya oo kula soomaya أنا هانتين أنا تابا ولي جبوا هامين جري أنا ولي جب تابا جهلا يقول سيحسوا أنا بوسدي وعروس كيسة مايستي أو بس كده وأقول دارتد تاش لا يحرو بس كما هرنا يأكسر عيال كيجنا يأكسر لان بالحلا يودو كوريوني حلا يودو كوريوني استوى هاي لكن على ما بتدري صدقوها هاي صدق gabdho ama adkaysi hore yeesha ama adkaysi dambe yeesha labadaas wax ka dhaxeeyo ma jiro سبحان الله حشود ماله حياة ماله حشود ماله لا إله إلا الله أنا كان مسلم كويستي حشك يا ولاد اللهينين وحنا ما مسلم سمين لهين ما فهمت ما كان هانت إذا أنا بحاول لها كان مسلم واحد إذا ما جبته أجانب كا أجانب هو مسلم أنا واحد كمان قال لي واحد كولا وكان سيار gabdho waxa la isilaaliyo hana laga xishoodo waxyaabaha qaar wax kasta oo miiriyaha keenaysan ka xishooda haddaydan adkeysan karin cabaadka iska daay laba week kama soo wareegin Muniiray markay halkan ka ooynaysa haddana maxamedow maalin dhexdaas waxaan maqal jirnay axmedow aan maqlayn haddana waxaan maqalnay cabdiwahaab haddana waxaan maqalnay cabdifataax ugu yaraan afartaas buu waan maqla waa la igu ogyahay marka cabaadka iska daaya ama adkaysi yeesha ya ama muxuu ahaa noloshiina sidiina kale u maareysta waxaan oo kale waa ceeb wallaahi waana ceebayseen maxamed buskut maskiinta iska soo celi marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.